السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبابي سود دوادة وولالكن عبد الله علي ميري channelكي مستميري ما أنت وحان أسعنا تريب ميرو كاونتي. ميرو ومقالة قادك لغا سود دوفيو ومقالة قادك مقالة حيبات قد مقلي جرتين كامنا مقالة قادك دالك كينيا قادك لود دوفيو سوماليا inkastoo hadda dee dunida kale aan loo dhoofin oo ingiriiski iyo Holland iyo wadamadii hore loo dhoofin jiray laga joojiyay hadda xamar bas loo dhoofiyaa iyo Soomaaliya inteeda kale gaalkacyo garoowe gaalkacyo garoowe gobolada kale oo Soomaaliya ilaa iyo Kenya intay dhulka Soomaali degta oo northern Kenya ku soo dhawaada tripkan wuxuu noqon doonaa trip aad ku raaxaysataan oo enjoyful one ah marka subscribe like كومنتيدا شيركا أصحاب هذا اللي وذاك تريبية بدنو سيدانو كلانا حالكن كلا صعود سفر والبا وحكو باللودا جديد كان مانتا استعمالينو وقاري هوندا CR-V سنة كيسونو يهي لابدو كنتوان يليه waxaan soo istaagnay kaalinta shidaalka ee toosha oo ku taala wadada A2 Thikaroon wadada A2 waa wada kamida wadooyinka u halbowlaha dalkani Kenya wadada waxay ka soo bilaabataa magaalada Namanga ee xuduudka dalka Tanzania waxayna ku dhamaataa magaalada Moyale ee xuduudka Ethiopia iyadoo bartamaha ka marta magaalada Nairobi waxaan dhalan dhoolnoo soconaba abaarihi 4 galabnimo ayaan waxaan soo galnay magaalada Mwea waxay caan ku tahay bariiska Bishori oo aad looga isticmaalo geeyigeeni Afrikada bari magaalada Mwea waxa ganacsiyo ku haysta dad Soomaaliya laakiin haddeertaan nooma suurtagelayso inaan wareysano sababtoo ah safarteenu waxay ku socotaa ilaa iyo magaalada Meru maadaama ay safartuna dheer tahay ma rabna inaan waqtiga idinka dhumino daawadayaal marka hadda waxaan u istaagaynaa inaan salaadii casar iska bixino ka bacdina cagta wadada saarno Jamia Mosque Mwea on the left side of the arcade signboard يريس حق كم موضة عشان left ذا لقل ما شاء الله سان صاقل وكنا ديار هذا سراد عصر وابل لقب بحيل لكن ومشان سكيت دكنا يا المها وكان المها كسب بحيل مساجدك ما شاء الله وكان قيل مشان كنت كذا الحمد لله وكان مساجدك كان salaadii casar iska soo ridnay waxaan soo istaagnay meeshan Nice Digital waa meel refreshment lagu sameeysto oo qaxwo iyo shaah iyo wax laga qaato baabuurta Nairobi ka imaada iyo kuwa Meru ka imaadaba meeshan dhexda istaagan kadibna dadku way degaan oo kii cunto rabana cuntadiisu cunaa kii kale oo masquul galay isfududeynayna sidaas isku fududeeyaan annaga meeshan markaan ka dhaqaaqnana safarteeni baa toos noogu sii soconaysa waxaan ku wajahanahay halka iyo Meru كان كده قاعدنا مجالة موية أو عن سعنا مسافة دن صدّن إلى 2 كيلومتر وحن سوق قلنا مجالة إمبو أو مجالة مدح ده قبل كإمبو سيدو كله ومجالة لجمع معموله ريجيون كان لسكويرة هذا إيسترن ريجيون سيدا أي جاريسا معموشو نوت إيسترن ريجيون إيسترن ريجيون مركان إدين فافاهيو وحلا سكودها قبل هذا كيتوي ماتشاكوس مكويني مرسبت Meru, Tharaka-Nithi, Embu iyo Isiolo County. Soomaali ayaa degan kuwa ganacsi ku haysta iyo kuwa waxbarasho u jooga oo dhigta sida iskuulada KMTC iyo jaamacadda weyn ee Embu. Magaalada waxa ku yaala masjid weyn Jamia Mosque muslim badanna waa degan yahay. Saad u jeedaanba waxaan waa beeriga cambaha. Ma sha Allah. Soo aragtid. Wadada dhexdeeda waa guryahoodii beerahiya ugu dhaxyaalaan qasab waxaan galay beeranaaya iyo qasab soo qurux beerana ma sha Allah dhanka kale mooski ma sha Allah iyo aad qurux badan beeraha cambaha ee quruxdooda cambada aad qurux badan waliba ma sha Allah wadada dhexdooda waa xaafadooda iskaga dhaxyaala ma sha Allah quruxda fiir waa beer islaamid ilaahu yaan la igu dilin waxaan fiir quruxdiis what a beautiful ما شاء الله في ذا وبيردن الله بإنتم إيجو وهذا وحني بعد ميرو هوتيل كيجان سوق لي ميشان لبض ما نصدق لما الموضوع صوتان كده جنان دونا ميرو عن كويك توا عشان روم كان إنتو سوي هي ميشان سيحان دور كتسوق الشيء
on the right side waxaa kaa qabani xamaamka batana nadiif clean then dhankan markaad usoo gudubto meeshii dharka la gashanayo waa wardrobe alaab ma watee baagadeeda sirtoon xoogaa yar igu jiraan wataa then tvgii meelaad ku yara shaqaysan kartid qaxwo waa diyaar mashintii biyaha lagu kuleysanayo and then viewgaana waa jira hotelka hoosna waa kaasaa meesha maqaaxida cuntada lagu cunayo iyo waa kaas view aad u quruxsan waa forestigii Meru Forest Meru buura badan then waatana sariirteeni السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابي waxaan joognaa Meru Town magaaladii aan fiirfiirinayna waxaan isku dayaynaa inaan idin soo duubno the best view of Meru Town masha Allah waa hadda waxaan joognaa Total Petrol Station Kilimani area I mean meel hore exna kumaat la dhihi jiray supermarketka jiradiisiyaan hadda gelaynaa ambal kaamirada dhanka kale idinku leexiyo magacii waa laga bedelay waxa loo bixiyay Cyan Hyperstore kaasa walna kuma dhaxan jirta meeshan ku dhagan yahay Meru Slopes hotelada daawadayaal haddaan taariikh yar oo kooban oo magaalada Meru ku saabsan idin siiyo gudoomiyihii ugu horeeyay ee degmada Meru waxaa la oran jiray Edward Butler Horn waxay dadka Meru ku naanaysi jireen Kangangi taasoo la macno ah gaabowgii wareegi jiray magaaladan waxaa la aasaasay 1912 sida ay sheegtay Magdalene Laverne Platz oo ahayd xaaskii nin la oran jiray W.A.F. Platz oo ahaa gudoomiye ku-xigeenkii ugu horeeyay ee degmada Meru markaas waxay ahayd kayn weyn uu ku noolaan jiray Edward Butler Horn waxaana uga dhisnay guri aad u weyn oo qasri ah John B. Griffiths oo ahaa wasiir u dhashay Wales oo horay uga shaqayn jiray gobolka xeebta waqtiga isticmaalka ayaa ka codsaday dawladda gumaysiga in gobolka Embu oo dhan la siiyo Methodist si ay u noqoto goob diimeed oo gaar u ah diintooda oo kaliya sigaas waa laga diiday sababtoo ah dawladdu waxay u aragtay mid aan ammaanka dan ugu jirin Griffiths ayaa mar labaad codsaday bishii December 1909 dawladdu way ogolaatay codsigii isaga ahay Griffiths iyo xulufadiisii waxay yimaadeen Meru bishii October 1909 si ay ula kulmaan duqii magaalada Jaalle Edward Butler Horn oo u qoondeeyay Methodist dhulkaasoo meesha uu ku yaalo lagu magacaabo Kaaga oo afka Meruga laga wado goobta habaarqabayaasha oo ah meesha ay hadda ku taala jaamacadda weyn ee Kenya Methodist oo ah jaamacad dhalinyaro badan oo Soomaali ah wax ka bartaan magaaladani waxay ku taalaa meel aad u jawi macaan dhulkeeduna barwaaqo sooran yahay buuro cagaaran durdurro iyo dooxooyin waaweyn bale Meru waxaa tagta wadada weyn ee B6 oo ka timaada Nairobi waxayna martaa dhinaca koonfur bari ee buurtan Mount Kenya iyadoo sii maraysa Mwea iyo Embu Meru waxay 35 kiiloomitir u jirtaa magaalada Isiolo oo Soomaali badan ku nooshahay magaalada Meru waa meel dalxiis loo yimaado waxaana ka agdhow buurta Mount Kenya Buffalo Springs National Reserves Lewa Conservancy Meru National Park iyo buuraha waaweyn ee Nyambane Vivian Falls Semwa Salt Lake iyo Lake Ellis iyo harada Sacred Meru waxay leedahay hoteelo waaweyn iyo maqaaxiyo
intaa haddaan kaga gudubno warbixintaas ku saabsanayd Meru Town iyo aasaaskeedii hore balan u gudubno halka ganacsiga magaalada. Meru waa magaalo waana gobol. waxaa hoos taga 9 deegaan doorasho. Meru waxaa ku taala xarunta bangiga dhexe ee Kenya oo adeegta waqooyi bari Kenya oo dhan. Meru waxaa xarumo badan ku leh in ka badan 22 bangi. dadka dhulkan daga waa beeraley. Dalaga u baxa waxaa ka mid ah qaadka, qaxwaha, caleenshaahda, digirta, mooska iyo cambaha oo loo dhoofiyo Kenya idil iyo dunida dacaladeeda. aan u gudubno marka dhankii ugu muhiimsanay ee muuqaalkeena oo ahaa beeraha qaadka. beeraha qaadku waxay ku yaalaan magaalooyinka Kangeta, Maua, Lare. asxaabay horay ma u aragteen geedka qaadka mise hadda idinku horeysa? hadday hadda kuugu horeyso commentiga noogu dhaaf lana share garay asxaab badan oo asxaabtaada ka mid ah si ay u arkaan ayaguna beeraha qaadka. Soomaaliya waxaan aad u rayaabay yar dhalinyarada meesha ku arkay. I think waan wareysan doonaa. wuxuu aad u yaqaanaa Soomaalida iyo qabaa'iladeeda iyo calaaqaadka ka dhaxeeya. marka balan wareysana ku soo dhawaada wareysigan. Umesema unaitwa nani? Phineas. Umesema unajua kabila za Wasomali? Unajua kabila gani? Ajuran, Asharaf, Aulian, Murile, na Makabul, na Audak. Okay. beertan dhex joogna geedkii waa kana qaadka. waa beerta gudaheedii waxaan waa kan geedkii hareerigii waa kan waa qaadadka kamida kan laakiin nooca Soomaaliya loo soo dhoofiyo ma ahana la igu dhahay waa nooceen Kenya bisa lagu dhex gadaa. ma sha Allah dan wax walba ma sha Allah ma iska dhaha. marka beertan ku dhex jira waa kana waxaan sidoo kale waxa u baxda galeyda wad aragtaan u maleynaa waa tana galeyda. geedka qaadkana waa kanaad arkaysaan oo ka dhex muuqda geeda waa dheerkaas. geeda afakaadha iyagana u buuxa. marka yarkii horay ugu jiraan raadinaa mutiriye. okay waa kana hadda noocan oo kale sa kan wuu cusub yahay hadda dhawaan beernuu dhahay عشان سنة دو. متوريه. This one naona bado it is small. Mulipanda lini? Hiyo imepandwa hata hiyo ilipandwa before mama akufa hiyo sasa. Okay. So I take 5 years. intaysan hooyadiis dhimashan sano ka hor waaye waqtigan hadda ka hor waa kan geedkii ma aragtaan waa ka geedkii qaadka Soomaali intii cuntana way idinkaasa dadkan Meruga oo gobolkan qaad bis ma beertaan. kan oo kale hadda meeshan waa kaas uu ii tilmaamaya waa bahashi shinnida. waatana waa shinnidii waxaas malabkiibuu halkaas marka geedo badan midkaas halkaas hoose ka muuqda isagana waa shinni kale waa kaasa aragtaan godkaas kale marka wuxuu dhahay geed walba weyn bahalkiya iigu hoos yaalla oo shinnida ku bahalkiyaysta marka malabna waa kala baxa. waa kana halkan ka muuqata balkiina waa kana Leo mzinga wako bala nyuki waliamanga. So hakuna asali saizi? Oh, nyuki ilihama kutoka huko kwa sababu ya kiangazi. Abaarta darteeda xoogaa hadda waxaa jirta malab la'aan laakiin way soo noqon doontaa. waa kan still geedahan yar yarka kana una tusabaya. Iko kitu kweli? Hawajarudi. Shinnidu way nabad guurtay. What is the issue? Oh, nyuki. Oh, wako. Oh, sawa. Twende tuwapatie space. Wasituue. Wakana isagoo baxaya. Oo diyaar ah. Baby. So beeraha saas iskugu dhex jiraan. Qaadkiina gooni buu uga baxayaa de
dad badan aan shuwa ogahay aan fahansanayn qaadka geedkiisa suuya qaadka geedkiisa waa laantaas saas u diiran oo xiiran ani waagi hore waxaan moodi jiray geed weyn oo miro ka laadaan oo laga daldalaayo sabuulkiina waa kaasaa waa kuwana qaadka afkaadhadii u baxda okay geedkan isagana 20 sano jira waa geedihiisa kuwa ugu cimriga badan yenye the oldest nigani the oldest Atanuko msayuko. Okay, ina miaka kama ngapi sasa hiyo the oldest? 50 years. Okay, over 50 years ka badan u jira geedaha qaarkood. Soo aaday. La hadan quraacdo kula shay marka saasan koofiyadan idin xirtay. Waa kaasa geedka qaadka. Qaad fiican weydiinay ha oo maqlaysaan isagana wuxuu leeyahay qaad fiican. Mturie iko kitu kingine huwa mnapanda ndani ya shamba ambaye si miraa peke yake? Napanda mahindi, maharagwe. Okay. Hizo. Okay. Cassava. Waxaan beeranaa. Hadi cassava hii. Okay. Iyo. Okay. Waxaan beeranaa u dhahay galley, waxaan beeranaa u dhahay digir, waxaan beeranaa u dhahay geedka la dhihi jiray maxog. Maxog Soomaalida qaarkeed ma taqaano. Marka sidoo kale malabkiina waad u jeedeen. Shaqo badan meesha uga socota dadkan gobolkan Meru intan uu qaadka ka baxo waa qayb kamida gobolka Meru hatta boqolkiiba 10 Meru ma dhama Meru way weyn tahay qaybaha kale Meru waxa lagu beeraa maxaa la dhahaa caleen shaah waxa lagu beeraa qaxwo waxa lagu beeraa cambayaashi shalay aan idin tusaay waxa soo dhana meesha ka buuxaan marka saas ula socda thank you noocan yarkan wada hadalna wuxuu igu dhahay qaadka noocan la jaro waa noocan kanoo kale lama jaro dhahay kan waa laanta barakaysan suu sheegay isaga marka tan aan la goostaa hadda kanoo kale soo kamayo iyo kanoo kale iyo noocyada la gooyo saanaana loo gooyaa suu isaga sheegay iyo kuwan yaryarka oo tirada badan haddaad u jeedaan waad aragtaanaan filayaa noocyadaasaa la gooyaa u dheh kan already kuwan waa diyaar waxay u diyaar yihiin in la goosto okay noocaas dhaaf way dhahay midka yaryarka waa kaasa marka sawirkiisa rasmiga oo qaadka markaan ka soo dhamaanay beerihii qaadka iyo fiidiyoyaashii aan ka soo duuduubnay annagoo baahi nafta nooga dhacaysan waxaan soo istaagnay maqaaxida Al Sadiq maqaaxi Soomaali leedahay maqaaxi aad u bariis macaan bariisi hilib macaan baan meeshaas ka cunnay daawadayaal waxaan soo gaarnay gabagabadii iyo gunaanadkii barnaamijkeena aad baan idinka mahadcelinaynaa maadaama aad nala dhamaysateen fiidiyogan fiidiyoyaal kale oo xiiso leh ku xirnow channelka Mr. Mire lana share garay asxaabtaada si gaarsii adigana fadlan rukumo si aad u hesho wax walba oo soo dhigno channelkeena maalin wanaagsan